Waa idin salaam asxaabta ku xiran channelkeena. Maxaa u diiday marwada Soomaaliyeed inay ninkeeda raaliyo u noqoto? Waa hadal inta badan ee bulshada aaminsan tahay. Haddii aan hadalkaas la iska dhaafin waxaa badanaya furiinka. Hadalkaas dartiisa qoysas badan oo Soomaali ah oo adduunyada ku kala nool ayaa ku kala taga. Maxay tahay sababta loo kala aaminsan yahay ragga iyo dumarka waxyaalaha khaldan? Dumarka intooda badan ayaa aaminsan ninka haddii raaliyo loo noqdo inuu xadkiisa ka baxayo, walina oo ku tumanaya xaaskiisa. Fikradaas haddaa aaminto waxay sababtaa khilaafyo badan oo dhexdiina soo gala. Mar walbana waxaa noqonaysiin dad aan isku qanacsaneen. Taasina waxay dib u noqon kartaa barbaarinta ubadkiina. Haddii aad sidaas aamintaan waxaa dhacayso in ubadka idin maqlaayo agtiisa inaa ku doodaan. Taasina waxay uqdad u keeni kartaa ubadka. Run ahaantii waa fikrad aad u qaldan ee dumarka intooda badanna ay aaminsan yihiin. Ragga qaarkoodana waxay aaminsan yihiin dumarka haddii la isku jilciyana in ay kugu tumanayaan oo ay habboontahay mararka qaar in laga masiirsiiyo. Ma ogtahay walaalkaygiiyo hal haween ah xaaskaaga ka sii jeesato in ay dhib ku tahay wax walba oo dunida yaalo. Walaalkaygiiyo ogow in xaaskaaga u jajabnaato waxay dhisi kartaa horumarka qoyskaaga. Waxaa macquul ah inta aad ku fikirayso dumar looma jajabnaado saddexeeyo in uu dhexdiina soo galo. Ma ogtahay waxa furiinka bulshadeena ku badiyay in ay kow ka tahay dumarka iyo ragga oo kala aaminsan lamaanahaaga haddii loo jilcanaado in uu kugu tumanayo, taas oo yareyso jaceylkii la isku qabo oo la isku soo guursaday. Guryo fara badan oo Soomaali ah ayaa lagu soo dhisay jaceyl, kadib markii la is guursadana si degdeg ah ku burburay. Taasina waxaan dhihi karaa waxa ugu horeeya oo sababa ayaa ah fikradda dhalinyarada Soomaaliyeed maskaxdooda ka guuxayso. Ogow haddaana maskaxdaada ka baabi'inin fikradda ah lamaanahaaga raaliyo looma noqdo. Ogow in ay wax badan burburayaan, naftana wixii la barayay ku dhaqmaysaa. Mar walba sida isku leedahay ha u jilcanaanin ayaa marka dambe heer waxaa gaaraysiin aad ilowdaan xilligii idinku dambeysay ee aad si galgacayl ah iskugu dhahdaan waa ku jeclahay. Waxaa jirto haddii uu lamaanahaaga kaa dareemo jiljileec oo kugu tumanayo, laakiin jacayl iyo naxariis badan haddii laga dareemo waxay horseed u noqotaa qoyska. Adigoo xad dhaaf u jecel oo haddana aad ka maarmi waayay maxaa ku diiday inaad dareenkaaga soo bandhigto. Inta as leedahay lamaanahaaga raaliyo looma noqdo mustaqbalkaaga iyo dhumin. Labada qof ee is qabta waa in ay naxariis iyo daacadnimo iskula joogaan si oo qoyskooda u noqdo mid tiirkooda adag. Adiga waqtiga filimka daawanaysid ama heesaha dhageysanaysid waxaa ku soo xasuusanaysaa lamaanahaaga, adoo sidaasna u xasuusanaysa uguna fikiraya maxaa ku diiday in aad dareenkaaga soo bandhigto. Ugu dambeyntii walaashiina sama qalbi waxay idin leedahay ogow lamaanahaaga sida aad adiga ka dhigato ayuu agtaada ka ahaanayaa. Haddii aad ka heshay muuqaalkan fadlan la wadaag asxaabtaada. Haddii aad nagu cusubtaa si ay ku dhaafin muuqaaladeena xiga channelka subscribe saar.